السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك دمان أصحابتك وحرن channelka waxay noo socday qisooyinkii nabiyada. Maantana waxaan ka hadli doonaa qisada Nabi Ismaaciil calayhi salaam. Nabi Ismaaciil calayhi salaam waa mid ka mid ah nabiyada Allah u soo diray dadka, waana wiilkii ugu horeeyay ee Nabi Ibraahim, waxaana hooyo u ahayd Haajara. Nabi Ibraahim calayhi salaam waxa uu muddo dheer ahaa caruur la'aan, markaas ayaa Allah waxa uu ku irsaaqay Nabi Ismaaciil calayhi salaam isagoona ku dhashay dhulkii Shaam. Markii uu dhashay Ismaaciil, Alla wuxuu Nabi Ibraahim ku amray inuu xaaskiisa Haajara iyo wiilkooda yar uu geeyo dhulka Maka. Dhulka Maka markaasi waxa uu ahaa dhul cidlo ah oon cidna deganayn. Markaas ayaa waxay la yaabtay Haajara sababtay u aadayaan dhulkaas, laakiin markii ay ogaatay inay tahay tani amarka Alle waa ay ku sabartay. Nabi Ibraahim calayhi salaam waxa uu Haajara iyo wiilkiisa Ismaaciil kaga tegay dhulka Maka. Kadib markii ay aragtay Haajara isagoo tegaya Nabi Ibraahim, waxay weydiisay sababta uu u tegayo, isaguna uma jawaabin. Intaasi kadib waxay weydiisay inay tahay tani amarka Alle, isaguna waxa uu ku yidhi haa, tani waa amarka Alle. Intaasi kadibna Haajara waxay ku tiri, hadday sidaasi tahay, Alla nama dayacayo. Maadaama aysan jirin wax biyo ah, Haajara waxay bilowday inay ku orado labadan buurood dhexdooda, buurta Safa iyo buurta Marwa, waxayna ku oraday 7 jeer iyadoo aad u daalan, ilaa ay ka maqashay cod ka yeeraya meel ayada u dhow. Markii ay soo laabatay, waxay aragtay malaku Jibriil oo cagtiisa ku dhufanaya dhulka, markaasna biyihii Samsam ayaa ka soo burqaday. Haajarana waxay bilowday inay dhulka sii qodo si ay biyaha u sii fidaan. Markii Nabi Ismaaciil calayhi salaam uu qaangaar noqday, Alla wuxuu ku amray Nabi Ibraahim calayhi salaam inuu wiilkiisa gowraco si uu u tijaabiyo iimaankiisa. Nabi Ibraahim calayhi salaamna wuxuu u sheegay Nabi Ismaaciil amarka Alle, Ismaaciilna oo ka ogolaaday arrintaas. Nabi Ibraahimna wuxuu u diyaar garoobay inuu gowraco wiilkiisa, laakiin markii uu isku dayay, Alle wuxuu ugu beddelay wan si uu u badbaado Nabi Ismaaciil calayhi salaam. Intaasi kadib, Alle wuxuu Nabi Ibraahim calayhi salaam ku amray inuu dhiso Kacbada isagoo kaashanaya wiilkiisa Ismaaciil. Waxayna bilaabeen inay dhisaan gurigii Alle. Markii ay dhismihii dhammeeyeen kadibna waa ay ducaysteen. Nabi Ismaaciil calayhi salaam wuxuu ku dhex noolaa qabiilada reer Jurxum, wuxuuna guursaday gabar ka mid ah qabiilada Carabta, wuxuuna noqday nebi loo diray dadka Carabta ah si uu u baro cibaadada Alle. Dhammaan qabiilada Carabta badankood waxay ka soo farcameen Nabi Ismaaciil calayhi salaam, waxaana ka dhashay Nebi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, oo ahaa nebigii ugu dambeeyey ee ambiyada. Qisada Nabi Ismaaciil calayhi salaam waa qiso muujinaysa sida Alla uu u imtixaano addoommadiisa, balse qofkii sabra ayaa guulaysanaya. Qisadan teeda xigtana waxaan ku soo qaadan doonaa qisada Nabi Isxaaq calayhi salaam. Intaa iyo intaynu isaga iman doono kulan dambe, waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.